Soomaaliya waa wadan qani ah, macnaa wax soo saarka waa la kordhin karaa. Wabiya ayaa leenahay oo macnaa biyo joogta ah laga heli kara. Ciid fiican ayaa jiro. Qoraxda waa joogto sanadka oo dhan. Geedna waxa waaye koritaankiisii wuxuu u baahan yahay qorax, biyo iyo nafaqo si fiican loo nafaqeeyo. Intaas waa haysanaa. Marka sabab oo Soomaaliya ay maanta gaajo iyo macluul beeraleyda iyo dadkii inay ugu jiraan ma taala meesha. We have certain crops that are already being exported, such as banana, sesame, lemon, dry lemon. These are already crops that have found their way into the markets in particularly in the Arabian countries. And recently we had companies from Iran, from Turkey, opening the banana to those markets. And we hope that in the coming 2 years, the face of the agriculture in Somalia will definitely change. Somalia hadda ay bilaabantay calaamado nabadgelyo oo aan hore u jirin. Waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay muxuu ahaa waxyaalaha hadda ka hor imanaya beeraha ay ka hortagto. Sidaa daraaddeed wasaaradda beeraha oo ka faa'iidaysanaysa khubaro aan anigu ka mid ahay waxay sameeyeen mashaariic dib loogu dhisaayo diigooyinkii, kanaaladii waraabka, muxuu ahaa caratuurkii lagaga hortegaya fatahaadda, warshaddii sonkorta oo jowhar la soo celiyo. waxaa kaloo ku jirta in warshaddii mareerey la soo celiyo iyo faanoole, diigadii faanoole oo korontadana dhalin jirtay, dhulkana bariiskana waraabin jirtay, in iyadana la soo celiyo. Soomaaliya geeska gees lacagta ugu badan oo adagoo dibadda ka soo gasho waa xoolaha la dhoofo. Weligeedna waa ahayd. Soomaaliya dhaqaalaha bannaanka ka yimaado oo dheeli tiraya waxa la soo gadanayo inta badan xoolaha ka yimaado. Walow caqabado ay jiraan oo xoolihii aysan tegin meeshay rabaan adduunka aysan tegaynin. maanta waxay joogtaa in gabdhihii ay raggi ka horeeyaan oo maaragtay aqoon yeesheen oo jaamacadaha beeraha ka soo baxeen oo tijaabooyin sameeyeen oo wax soo saarkii dalka isu taageen. waxay ka mid tahay marka rajooyinka waaweyn oo la isku hadlay karo. haddii raggana rag badan oo diyaasbaraha oo bannaanka ka yimid ayaguna dhul badan ay gateen, wax soo saar ay ku jiraan, cilmiyay bannaanka kala yimideen, dhulkiina waa haystaan. marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda waddanka Soomaaliya wax la isku hadlay kara inay ka soo bixi doonaan xagga beeraha. waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheed in Soomaaliya iskaga filnaato wax soo saarka beeraha, isla markaana ay u gudubtaba inay dhoofiso, taasoo runtii dhul hawshaas qaban kara aan leenahay, laakiin aqoon naga maqnayd oo hadda aan helnay. dhallinyaradiina shaqo loogu abuuro, waddankiina horumar ku gaaro. Soomaaliya waxay laf dhabar u ah dhaqaalaheega marka laga fikirayo waa xoolaha iyo beeraha. saa daraaddeed waxaan rabnaa inaan kor u qaadno xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, annagoo rabno inaan young generation yaryar oo aan soo saarno oo improvement fara badan inay ka geystaan dhulka ka geystaan. waan maqli jiray ilaa yaraantaydii afgooye maxaan ku idhaahdaa iyo jannaale iyo xamar beere waaweyn bay leedahay iyo wax mar way qurux badan tahay. ha burbursanaato laakiin wixii dhulka ahaa lagama tegi karayo. waad arkaysaa beerihii aan arkay ilaa doraad ilaa shalay toole waxaaba igu dhalisay inaan soo dego, which is not possible maaha, laakiin at least waxa weeye waxyaabo waxay ka bedelaysaa maxaan ku idhahdaa fikirkii horeed ka haysatay. hadda waddankayni waa macyaha shax waaye, soomaalidii maqneed waa imaadi. anunka horta ma bixin roobkan wanugu bilaabay wanugu feeriye. marka soomaalida gudaha joogta kaligeed ma laga rabo waddanka hadda dhismihiisa iyo quruxdiisa. dadka bannaanka joogana waa laga rabaa. qof walba muwaadan oo Soomaalina waxaa loogu baahan yahay inas ogaado hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo.
وانا لما هوراني hagarlii wax ugu qabo marka beeraa leenahay xoolaa leenahay badaa leenahay marka beertaas haddii aa abuurtidoo dhigtootidoo dudugtid oo qurxisid oo wanaajisid adigana waa ku noolaahay dadka iyo xayawaankaba waa ku noolahay